بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ugu tacsiinayaa halkan dhammaan dadkii ku waxyeeloobay ama ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay maaragtay tuulada hoos tagta degmada Cadale waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin naxariisto dadkii maaragtay ku dhaawacman Ilaahay ha u boogadhayo waa laba beelood oo walaalo ah oo maaragtay aan mudnayn inay isdagaalaan saacadan oo aan taariikhdu tahay 2019 oo laga soo gudbay maaragtay xiliyadii dagaal beeleedyada waxaan leenahay waxaan baaqnimada u direynaa walaalayaal dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinto waxaa jira 20 jir mustaqbal leh waxaa jira 20 jir hami siyaasadeed hami fog leh hami dhaqaale leh hami guur leh waxaan leenahay 20 jirkaas yaan dhiigiisa iyo dhacankiisa meel cidla lagu taadinin 20 jirkaas yaanan mustaqbalkiisa la baabi'inin 20 jirkaas yaanan maanta loo oogin inuu maaragtay qor intuu qaato dad laayo ama la dilo ama asiga wax dilo walaal waxaan idinku baaqaynaa dagaalkaas sida u dhaqsiyaha badan inaad joojisaan anigu ka wasaarad ahaan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo dib u dejinta dowlad goboleedka Hirshabelle waxa idin ballan qaadaynaa inaan sida u dhaqsiyaha badan idinku soo gaarno sida aan wax u qaban karno u qabanno inaan ma aragtay meeshaas ay noqoto meel xasiloon oo dadku ay wada degaan inay tahay inaan ka shaqeynaa aan rajeynayna haddii Ilaahay yiraahdo laakiin baaqeena waxay tahay in la sameeyo xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha oo ma aragtay dadku ay isku furmaan waxaan ka codsanaynaa odayaasha beelaha maaragtay dagaalamaya ama dhammaan dadka ka soo jeeda degmada Cadale dhaqmaal ha ahaadeen culimada diinka ha ahaadeen siyaasiyiinta ha ahaadeen nabadoonnada ha ahaadeen ugaasida ha ahaadeen malaaqyada ha ahaadeen maaragtay imaamiyada dhammaan inay u gurmadaan dadkaas sidii maaragtay lagu joojin lahaa maaragtay dagaalkaas sokeeye oo maaragtay hadeertan socdo waxa qaasata ka codsanayaan dawladda federaalka ciidamada militariga ah ee awalba ku kala dhex jiri jiray inay kala dhex galaan waxaan ka codsanayaa imaamka iyo ugaaska si qaas uga codsanayaa iyo salaadiinta ka soo jeedo maaragtay dhammaan reer Hirshabelle inay ka qayb qaataan nabadeyntaas waayo nabadeynta waa wax aad muhiim ku ah dhiig daata maanta maaragtay dan looguma jirto dhiig daata baahi uma qabno waxaan leeyahay imaamka iyo ugaaska iyo nabadoonnada waxaan idinka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad ku baxdaan sida ugu dhaqsiyaha badan inaad maaragtay aad xabadaas ku joojisaan waxaan ka codsanaynaa ciidamada militariga taliyaha qaybta 27 qaasatan oo maaragtay aan u maleynay inuu agaar ka dhow yahay xabada joojintaas inuu ka qayb qaato ciidamo uu kala dhex dhigo inta aan ka imaanayno xildhibaanaha noqoto wasiiraha noqdaan madaxweyne ku xigeen dhammaan waan soo soconnaa haddii Ilaahay yiraahdo waan u imaanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku hadlayaa afka xukuumadda walaal waxa idinka codsanayaa dhammaantiin dadka dagaalamayo inaa xabada sida u dhaqsiyaha badan ay ku joojisaan 20 jirka mustaqbal kale oo visionkiisa uu yahay bari inuu wax qabsadane inaadan u haliginaha inuu maanta dhinto ama uu wax dilo waxaan ka codsanaynaa dhammaan in xabada sida u dhaqsiyaha badan la joojiyo waxaan ku celcelinayaa imaamka iyo ugaaska waxa waa laf dhabarta maaragtay nabadeynta inay meesha ku baxaan baaq nabadeed ay diraan meeshii ay ka qayb qaataan annagana waa imaanaynaa haddaan nahay xildhibaano iyo wasiiro waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu